iga waran oona iga sheekee higsigaaga iyo hankaaga meesha uu gaarsiisan yahay. ogow noloshaan waxay gacmo furan ku soo dhoweysaa oona u dabaaldegtaa qofka hankiisu aad u sareeyo. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا. السلام عليكم وأنتم حسنتهاي داوشة الفيديو كان كسر دو برنامجك نرى عصب مجاي ويوسف سكين سبحانه صلى الله عليه وسلم أيام مارين وحو أمرتي نرمية ninkan wuxuu subhanahu sallallahu alayhi wasallam u soo dhaweeyay una sooriyay si aan marnaba caadi ahayn. hadaba subhanahu sallallahu alayhi wasallam waxa dabeecad u ahayd hadii uu qof wax wanaagsan u sameeyo inuu abaal gudo. saas darteeda wuxuu ninkii ku yiri i weydiiso waxaad rabtid. arintan waa arin aad iyo aad muhiim u ah. ila fiiri meeshaan ninkan maanta waxaa u timid fursadii ugu qaalisanay noloshiisa oo dhan. fursadan ma jirto fursad loo dhigo, waa fursad dahabi ah. waayo qofka ku leh i weydiiso waxaad rabtid waa rasuulkii Alle. waa rasuulkii Alle. ducadiisa dhulka ma dhacayso. wax walbo Alle weydiisto waa hubaa in loo aqbalayo. hadaba ninkan waa inuu arintan aad iyo aad uga fikiraa, asagana midaasi wuu ogaa. sidaas darteeda kuma degdegin inuu markiiba wax weydiisto, balse waqtigiisa ayuu qaatay. hadaba inta uu saaxiibkeena ka fikirayo waxa uu weydiisanayo, ka waran adiga haddii aad meesha joogi lahayd oo subhanahu sallallahu alayhi wasallam uu ku weydiin lahaa i weydiiso waxaad rabtid, maxaad weydiisan lahayd? maxaad weydiisan lahayd subhanahu sallallahu alayhi wasallam? ka fikir bar. hadaba kaale aynu ku soo noqono saaxiibkeena waa hadda fikirkiisa uu dhameystay. hadda wuxuu diyaar u yahay inuu weydiisto waxyaaba ugu muhiimsan noloshiisa. ninkan uu og yahay waxaan uu dalbanayo oo subhanahu sallallahu alayhi wasallam ka dalbanayo in loo aqbalayo una helayo. hadaba talow muxuu ku fikiray? talow muxuu go'aan ku gaaray inuu weydiisto? kaale aynu aragnay. ninkii wuxuu yiri rasuulkii Allow waxaan ku weydiisanayaa rati aan rarto iyo rig aan caanaheeda caruurteyda u maalo. ila fiiri ninka waxaa soo martay maanta fursadii u qaalisanayd. fursadan oo laga yaabo inaysan mar kale soo marin, balse wuxuu weydiistay rati iyo ri. sidaas darteeda subhanahu sallallahu alayhi wasallam kama aamusin arintan. ma ahan arin laga aamusi karo. qof dhan oo fursadan la siiyay, fursadan dahabiga ah oo na weydiisanaya waxyaabo hoose, waxyaabo liita. qof dhan oo hankiisa uu ku wareeganayo ri iyo rati, ma suurtoobayso in laga aamuso. sidaa darteeda kama aamusin subhanahu sallallahu alayhi wasallam, balse asaga oo wax baraya ninkan iyo anaga oo doonaya inuu nagu beero oo nagu abuuro in hankeena aynu ka dhigno midaad u sareeya, ayuu wuxuu ku yiri ma waxaa noqon weyday sida duqdii reer bani Israa'iil oo kale? maxaa ku diiday inaad noqoto sida duqdii reer bani Israa'iil oo kale ugu yaraan? saxaabadii meesha wada fadhiyay subhanahu sallallahu alayhi wasallam agtiisa waxay doonayaan inay ogaadaan duqdan cajiibka ah, duqdan hankeeda aadka u sareeyo ee subhanahu sallallahu alayhi wasallam ninkan uga tusaale qaadanayo oo ku leeyahay maxaa u noqon weysay sida duqdaas oo kale? waa duqda talow duqdan maxay sameysay? wuxuu yahay hankeedu. saa darteeda sida adigaba hadda u rabtay inaad ogaatid sheekada duqdaas ayay ayaguna u rabeen inay ogaadaan. hadaba subhanahu wuxuu ku yiri
duqdaas ay idin sheego sheekadeeda nabi muuse calayhi salaam iyo bani israa'iil markay masar ka baxayeen oo ay guurayeen ayay wadadii ka lumeen kuwa kamid ah qaar kamid ah culamadoodii ayaa waxay ku yiraahdeen nabi muuse anaga waxaa lana amray in marka aynu ka guurayno masar aynu hore u sii qaadno lafaha nabi yuusuf calayhi salaam hadaba waxaa loo baahan yahay in la helo horta qabriga nabi yuusuf calayhi salaam uu ku aasan yahay yaa garanaya qabrigiisa waa la isweydiiyey kadibna waxaa la ogaaday inay jirto duqdaas oo garanaysa qabriga nabi yuusuf calayhi salaam meesha uu ku yaalo nabi muuse calayhi salaam wuu baxay wuxuu u tagay duqdii markuu u tagay wuxuu ku yiri waxaan doonayaa inaa i tustid qabriga nabi yuusuf meesha uu ku yaalo waxaan doonayaa inaan lafihiisa qaadno oon hore usii qaadano duqdii waxay ku tiri waan ku tusinayaa laakiin hal shardi shardigaaga muxuu yahay waxay tiri shardigaygu wuxuu yahay in aan jannada kula wadaago inaan jannada daris kula ahaado ayaan doonayaa fiiri hamiga meesha uu gaarsiisan yahay iyo hamigii ninkii hadaa meesha uu gaarsiisnaa isku fiiri isku barbardhig adiga waxay leedahay waxaan doonayaa nabi muuse inaan jannada dariskaaga ku noqdo nabi muuse arintii waa arin weyn wuxuu samayn karaa duqdaana daris kula noqonaysa hadhow wax yar kadib waxay ayaa ku soo degay waxaana lagu yiri muuse u yeel duqdaasi dalabkeeda allah duqdii waxay ku guuleysatay inay nabi muuse daris kula noqoto jannada sidayna ku gaartay midaas waxay ku gaartay oo kaliya hamigeeda hankeeda sare ay ku gaartay balse hadduu ahaan lahaa hankeeda mid hoose maxaa ka geli lahaa waxay leedahay maswaxda wax adduunyo ku saabsan isii waan ku geynayaa qabriga balse aqli ayay lahayd jirkeeda wuxuu ahaa jir tuqnimo ah balse maskaxdeedu waxay ahayd maskax yar waxay ahayd aada u sareysa oo hankeeda aada u sareyso waa duq laakiin waa duq hankeedu sareeyo iga waran hankaaga halkuu gaarsiisan yahay hamigaaga halkuu gaarsiisan yahay ii sheeg duqdii way waday qabriga geysay wayna ka soo bixiyeen lafii sida ayna ku baxeen iga waran hankaaga siduu yahay ogow noloshaan waxaad ka helaysaa waxaad adigu ka dalbatid maxaad ka codsanaysaa noloshu inay ku siiso wax yar inay ku siiso mise wax weyn inay ku siiso noloshu waxay ku siinaysaa waxaad adigu ka codsatid guushaada iyo farxadaada waxay gaarsiisan tahay hadba inta uu gaarsiisan yahay hankaaga ka fikir arintan halkuu gaarsiisan yahay hankaaga halkaas ayaad adiguna ku eg tahay halka uu ku eg yahay hankaaga iyo hamigaaga ayaad adiguna ku dhammaanaysaa halkaas ayaad joogsanaysaa halkaas ayaad ku ekaanaysaa ii sheeg hankaaga meesha uu gaarsiisan yahay aan kuu sheegay qofka aad noqon doontid haddaba waxaynu soo gaarnay su-aasha ugu muhiimsan waxayna tahay su-aashaan sideen ku noqon karaa qof hankiisu uu sareeyo waxaad ku noqon kartaa adiga oo nafsadaada ku dabaqa saddexdan tallaabo tallaabada koowaad ku seexo qorshe kuna soo kac qorshe qofka aan hadaf lahayn qofka aan noloshiisa u nidaamsanayn qofka aan noloshiisa u qorshaysnayn marna lagama yaabo inuu hankiisa sareeyo sidoo hankayga ku sareynaya waayo ma og aniga waxaan u noolahay waan iska seexanaya waan iska soo kacaya waxbaan iska cunaya noloshu hadba waxaan iska raacayaa meesha ay ii wado hadba meesha ii jihayso un baan u jihaysanaya anigana ma ihi qof qorshe ku nool ma ihi qof ay wax u degsan yihiin ma ihi qof hadaf hortiisa yaala oo hadafkaasna uu doonayo inuu gaaro samayso hadaf gudahaaga ka shidaya dabkaas oo kuu diidaya ina xamaasadaada hoos u degto balse mar walba xamaasadaada waxay noqonaysaa mid aada u sareysa haddaba
muxuu yahay hadafkaaga nolosha muxuu yahay hadafkaaga nolosha ii sheeg aan kuu sheegay hankaaga meesha uu gaarsiisan yahay talaabada labaad la saaxiib dad hankooda u sareeyo waxaan doonayaa inuu hankayga noqdo mid sare waxaan la saaxiibayaa dad nolosha ka dhacay dad aan horumar kala jecleen dad aan doonayn nolosha inay meel ka gaaraan ma noqonayso midaas isku meel ma gelayaan labadaas waa inaad si fiican u doorataa saaxiibadaada adiga ugu dambeystii waxaad noqonaysaa un saaxiibadaada ii sheeg saaxiibadaada waxaan kuu sheegayaa qofka aad tahay saaxiibadaada baa lagu garanayaa saaxiibadaada saameyn ay kugu leeyihiin ay kugu daaranayaan aad u fiiri saaxiibadaada yaad la saaxiibta adiga yaad la sheekaysataa inta badan bas ugu dambeystii waxaad noqonaysaa un dadka hadda inta badan la fadhiisatid aad uga fikir arrintan ugu dambeystii waxaad noqonaysaa dadka hadda la fadhiisatid meesha hadda fadhiga u badan yahay unbaad noqonaysaa ugu dambeystii fadhiga xaguu u badan yahay dadka fadhi ku dirirka ah dadka maalayacniga ah dadka waqtigooda iska dila dadka iska cayaara halkuu u badan yahay fadhigaaga hadhow meeshaas unbaa kusoo dhammaanaysa adigana aad uga fikir saaxiibadaada dooro dad hami sare leh dad nolosha doonaya inay magacooda biyo dahab ah ku qoraan dooro dadkaas talaabada saddexaad dhiirageli nafsadaada dhiiragelinta ugu muhiimsan waxay ka bilaabataa adiga nafsadaada haddii adiga aadan dhiiragelin nafsadaada haddii adduunka dhan suukaa yimaado si uu ku dhiirageliyo kuma dhiirinayo marka hore waa in adiga dhiiragelisaa nafsadaada kula hadal nafsadaada hadalo dhiiragelin ah waan gaarayaa guusha waxaan ahay qof faraxsan waxaan ka dhabaynayaa hadafkayga nolosha guusha aniga ayaa iska leh ha kula hadal nafsadaada hadalo moraal jab ah hadalo hoos kuu dhigaya kula hadal nafsadaada mar walba hadalo kor kuu qaadaya hankaaga kor gaarsiinaya ogowna hadaladeenu waxay saameeyaan fikirkeenana wuxuu saameynayaa nolosheena oo dhan maxaad kula hadashaa inta badan nafsadaada maxaad ku tiraahdaa markaad keligaaga tahay nafsadaada waxaan ahay qof faashil ah anigu waxaan ahay qof xishood badan anigu ma samaysan karo saaxiibo badan maxaad kula hadashaa inta badan nafsadaada aad uga taxadar caqligaaga hoose ma kala garanayo waxaad sheegaysid waxa inay sax yihiin inay khalad yihiin ma kala bixinaya isaga waxaad sheegto waa ku qaadanaya qof faashil ah waa yahay nacam labayk wuu ku qaadanaya markiiba ma kala bixinayo aad uga fikir hadalladaad kula hadlaysa nafsadaada dooro hadallo wanaagsan dooro hadallo dhiirigelin ah dooro hadallo farxad ah dooro hadallo guul ah dhis nafsadaada markaas ayaad dhismaysaa markaas ayuuna hankaaga noqonayaa mid aad u sareeya diinteena suuban waxay nagu gubaabisay oo nagu boorisay inaynu hankeena ka dhigno mid aad u sareeya sidaas darteed alle subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay dadka hankoodu aad u sareeyo dadka nafsadooda ku mashquuliya waxyaabaha waaweyn waxyaabaha sarsare waxyaabaha faa'iidada leh alle subxaanahu wa tacaala ma jecla dadka ku mashquula waxyaabaha hoose waxyaabahan micnaa lahayn waxyaabaha maalayacniga dadka ku mashquula sidaas darteeda suubaneena sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo jideeyay arintan wuxuuna nagu yiri hatta haddii aad alla baryaysiin oo aad weydiinaysiin jannada weydiista jannatul firdaws al-a'la Allah hatta janooyinka marka alla ducada ka baryayno janooyinka wuxuu noo jideeyay suubaneena sallallahu alayhi wasallam qaabkaynu alla uga baryi lahayn janooyinka maxaynu ku ducaysanaynaa waxaynu ku ducaysanaynaa jannatul firdaws ha weydiinin janooyinka kale may maxaa ku diidaya inaad gasho jannada ugu sareysa waad istaaysaa inaad gasho jannada ugu sareysa hadaba weydiiso jannatul firdaws al-a'la ayada ayaa janooyinka ugu sareysa ayada ugu fiican janooyinka midda ugu fiican dalbo ha weydiisanin kuwa hoose weydiiso midda ugu sareysa soo ma jeedid sidoo noogu tarbiyayno subhanahu sallallahu alayhi wasallam inaynu hamigeena ka dhigno mid aad u sareeya ha hilmaamin waligaaga noloshu waxay ku siinaysaa wixii aad ka dalbatid مع سند افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا